markii ay u soo dhawaato waxay arkaysaa laba askari oo xarunta sii galayo. albaabkana kood ayaa ku xirnaa, ayadana koodka ayay xifdinaysaa. markii ay galaan ayadana way soo galaysaa. markii ay gasho waxa ay gashanaysaa jaakada dhakhtarka si loo fahmin. qolka ayayna galaysaa, waxayna ku arkaysaa bukaan duq ah. dhakhtarta kalena waxay u maleynaysay inay meesha ka shaqayso mana ka shakinayso. jiilna waxay iska dhigaysaa dhakhtar. lacagta duqdana waxay u sheegaysaa in marar badan la garaacay. jiilna waxay u ballan qaaday inay caawin doonto. isla markaasna Murphy ayaa soo galayso, waxayna jiil weydiisay bare, sidoo kalena waxay u sheegtay inay weli daawo helin, laakiin ay samaysay daawo taas oo maskaxda nadiifisa. jiilna waxay u sheegtay inay ku faraxsan tahay inay caawiso. dabadeedna jiil waxay ka baxday xarunta iyadoo murugaysan, way iska oynaysaa iyadoo u malaysa inay nolosha bini'aadamka u dhamaatay. silma filaan ayay cirka waxay ku arkaysaa holac guduudan, sidoo kalena dooj oo baabuur wata ayaa meesha ka soo muuqday. Matilda iyo Nuuxna gaariga ayay saarnaayeen, laakiin ayaga waxaa lagu amrayaa inay gaariga ka soo degaan. jiilna dhankooda ayuu cararaysaa, laakiin ayada askari ayaa qabanayo. ilaa ugu dambeyntii Matilda u sheegtay inay seexan karto. subaxdii Murphy iyo Curtis waxay u sheegeen tijaabooyinka inay dadka caawin doonto. Matildana waxay aragtay daanyeer maskaxdiisa go'an tahay, kaas oo weli nool. Matildana gacanta ayay ka qabanaysaa, halka Curtis uu isku dayayo inuu daanyeerka suuxiyo, laakiin ma suuxayo. ayagana waxay rabaan inay isla barbar dhigaan maskaxda Matilda iyo tan daanyeerka si ay u tijaabiyaan suuxinta. kadib Matilda ayaa lagu tijaabinaya, ayadana isla markii way suuxaysaa. dhanka kale jiil waa mid dabaqsan hurdo la'aanta darteed. Murphyna waxay u sheegaysaa in hurdo la'aantu ay u badan tahay inay sababtay qoraxda oo saameysay maskaxdooda. jiilna waa ay xirneed, waxayna Murphy ka baryaysaa inay gabadheedu waxba ku samaynin, laakiin Murphy waxay u sheegaysaa in badbaadada bini'aadamku ay ku xiran tahay gabadheeda. dhanka kale askartu waxay ogaadeen in dooj uu yahay koronto yaqaan, waxayna ku dureen cirbad. dhanka kale Matilda waxay u sheegtay in naagta duqda neefsashada joojisay. Curtisna waxa uu isku dayayaa inuu naagta badbaadiyo, laakiin naagta way dhimanaysaa. Murphyna Curtis waxay u sheegaysaa in Nuux la keeno si loo barbar dhigo maskaxda Matilda. dhanka kale jiil waa isku dhaxyaacaysaa heer waxa ay gaartay inay u malayso in wiilkeeda Nuux uu dilayo. isla markiina askari ayaa soo galaya, Nuux ayuuna kaxaynayaa. kadibna askarta banaanka joogta ayaa mid ka mid ah wax uu arkaya shay bambo eg, asagana bambo ayuu u malaynayaa, xabad ayuuna furaya. askarta kalena maskaxdooda ayaa isku dhexyaacayso heer ay gaareen inay dhexdooda isdilaan. jiilna tubada ay isku dayaysaa inay jebiso. dhanka kale askarigii Nuux waday maskaxdiisa ayaa lumaysa, wax uuna ku sigtay inuu Nuux dilo, laakiin dooj ayaa ka soo gaarayo. askariga ayuuna isku dayayaa inuu wax fahamsiiyo. dhanka kale jiil birta ay iska furaysaa Murphy oo cirbad lagu durayo ayayna qolka ugu soo galaysaa. Murphyna waxay ku dhehaysaa ma ku ogolaanay inay gabadha wadato. si kamo kadibna Murphy way xanuunsanaysaa, wayna dhimanaysaa. waxaana ogaanaynaa in Curtis uu ka dambeeyo dhimashada Murphy, kaas oo cirbada wax ugu daray. jiilna Matilda ayay soo wadaysaa si ay Nuux u raadiyaan. askar ayaana xabad ku soo ridayso, ayagana way ka gambanayaan, ayaga ayaana isdilayo. ugu dambeyntiina Nuux ayay helayaan, laakiin isaga wax uu rabay inuu taabto fiilo koronto ah, asigoo u malaynaya inay tahay kaluun. korontada ayaana qabanaysa, wuuna suuxayaa. Matildana waxa ay doonaysaa qalabka wadnaa, way soo qaadaysaa. markii ay keento waxay isku dayayaan inay badbaadiyaan, laakiin ma soo kacaya. labadooduna meesha ayay ku miir daboolmayaan. subaxdii ayaa la gaarayaa, jiil ayaa soo kiciysa, hooyadeed ayayna ka kicinaysaa. sidoo kalena Nuux ayay isku dayaysaa inay ka kiciso, kaas oo ugu dambeyntii kacayo, kaas oo la micnuhu inuu awooday inuu hurdo. askari qore wato ayaa meesha kasoo muuqanayo, ayagana way dejinayaan, asigana waxa uu ogolaanayaa inay baxaan. dabadeed waxay isku diyaarinayaan inay baxaan. kadib Nuux jiil waxa uu sheegayaa inay ku saxneed in aanay meeshaan imaanin. dhanka kale Matilda waxay aragtay baalka wax fidiya, markaas ayay ogaatay in qofka haddii uu suuxo kadibna uu soo kaco inay noloshiisa sida caadiga ah kusoo noqonayso, uuna caafimaadayo, taas oo cadeen u ah markii Nuux korontada qabatay inuu soo kacay. sidoo kalena markii shilka ay galayeen inay Matilda suuxday, taas oo awooday inay soo kacdo una noolaato si dabiici ah. kadib waxay dejinayaan inay jiil geeyaan harada oo ay suuxiyaan. biyaha ayayna ku qarxinayaan, markii ay suuxdayna dib ayay u kacaysaa, taas oo awooday inay nolosheeda si dabiici ah kusoo laabato. filimkeenana intaas ayuu ku dhamaanaya. haddii aad ka heshay muuqaalka like saar youtube-ka Khulaasada Soomaaliyana kusoo biir. waa ina muuqaalkan iyo muuqaalada xigo. maca asalaama.